tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa qirtay in kooxdiisu ay si fudud u siisay Manchester United guush 3 gool iyo 2 ka dhacday Emirates Stadium iyadoo guuldaradaasi soo afjirtay rikoor adag ee Gunners ku difaacaysa garoonkeeda. markaan qasaarno aniga ayaa qaata mas'uuliyadda waxaana difaacayaa ciyaartooydayda ayuu yiri Arteta. anaga si sahlan ugu hiibinay United guushan haddii aad rabto inaad guulaysato waa inaad ku gudubtaa waqtiyada culus ma sugi kartid inaad guulaysato kulan walba taa waa wax macquul ahayn. Arteta ayaa sheegay in guuldaradana ay yareysay farqiga dhibcaha horyaalka isla markaana ay tahay kooxdu si degdeg ah uga jawaabto. farqiga dhibcaha aad buu u yaraanayaa waana si sax uga falcelinaa oo aragnaa awooddeena dhabta ah. Champions League ayaan sugaynaa maahin maalinteennii waxaana weynay dardartii nagula bartay. Arsenal ayaa horyaalka BL ku hogaaminaysa balse guuldaradan ayaa ka dhigtay tartanka mid furan iyadoo City Aston Villa ay xilligan ku soo dhawaadeen kooxda hogaaminaysa horyaalkii Gunners. taageerayaasha Arsenal ayaa aad kaga xareysan waqtigan sababaha kooxda waqtigan guuldaro noocan ay ka soo gaartay kooxda United ka taa soo fariistay booska afraad. ilaa kale Bukayo Saka ayaa ku booriyay Arsenal inay jawaab culus ka bixiyaan guuldarada United-ka. Arsenal ayaa hoggaanka qabatay qaybtii hore iyadoo bandhig qurux badan ay sameeyeen qaybtii koobaad laakiin qaybtii labaad United ayaa 2 gool kaga jawaabtay goolkii koobaad xilli Arsenal ay barbareeyeen laakiin Matteo Cunha ayaa dhamaadkii kala diray kooxda Arsenal. marwalba safarku ma aha mid sahlan isbuuca dambe anaga ayaana naga go'aanta inaan muujino dabeecadda ayuu yiri. Saka ayaa xilaareedkan ka qayb galay 31 kulan isagoo 7 gool iyo 7 caawin sameeyay oo ka dhigaysa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan Arsenal oo ku jira tartanka horyaalka waqtigan kooxdu ay doonayso inay ku guuleysato. jawaab ayaan ka bixin doonaa ayuu yiri ninka lagu magacaabo Saka guuldarada naga soo gaartay kooxda Red Devils-ka. dhinaca kale John Terry hogaamiyihii hore kooxda Chelsea dhankiisa farxad goor ayuu ahayd guushii ka soo gaartay kooxda Manchester United. 3 gool laga dhaliyay Arsenal ayaa ka dhigan tirada goolasha xilaareed laga dhaliyay horyaalka ay gaarayso 17 gool. tan cusub afjirtay rajadii Arsenal ka qabtay in jibiyaan rikoorkii difaaca taariikhiga ay Chelsea 2004 marka kooxda Jose Mourinho 8 kulan looga dhaliyay kaliya 15 gool. Terry isagoo ahaa wadnaha difaaca rikoorka dhigay ayaa marka bartiisa Instagram-ka soo dhigay qoraal iyo muuqaal ugu dabaaldeg rikoorkaas oo hadda jirsada 21 sano. rikoorkeeni weli waa uu jiraa oo u badbaadiyay ayuu yiri. waxaa fariin u diray xidigihii isla dhisteen gidaarkii difaaca Chelsea Peter Cech, Paul Ferreira, Ricardo Carvalho iyo William Gallas. waa waqti lagu dabaaldegi lahaa dhalo ama galaas khamri ah. Terry ayaa qirtay in xoog kaga walwalsanaa bilowga xilaareedkan sidii Arsenal u difaacanaysa balse hadda uu ku faraxsan yahay Chelsea rikoorkeedu uu sii jiri doono. guuldaradii Arsenal ka soo gaartay Manchester ma aysan dhumin kaliya fursadda rikoorkan balse waxay sidoo kale u ogolaatay Man City iyo Aston Villa inay ku soo dhawaadaan hoggaanka horyaalka Ingiriiska. dhinaca kale tababarihii hore kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa ninkiisa farta ku fiiqay ee ka dambeysay guuldarada soo gaartay kooxdiisii hore. Wenger oo marti ku ah telefishinka BeIN Sport ayaa xuseen ay tahay markii ugu horeysay uu arkay Saliba iyo Gabriel oo ku adkaatay inay maamulaan weerarka kooxda ka soo horjeeda sidoo qaba macallinkii hore Arsenal doonista weyn ee Arsenal ee u qabtay guusha ayaa keentay in difaacyada ay lumiyaan sabirkii tayadii farsamo ee lagu yaqaanay taa United u ogolaatay inay ka faa'iideysato qaladaadkaasi. Wenger wuxuu tilmaamay in kastoo Supermandi uu sameeyay qaladkii horseeday goolkii barbaraha ee Bryan Mbeumo haddana Saliba ayaa la rabay in booskiisa dambe sii xajisto halkii hore u dhaqaaqi lahaa. Wenger wuxuu sheegay in difaacyada dhexe Arsenal ay ahaayeen kuwo ka dhib badnaa sida caadiga ahayd isagoo xusay Bryan Mbeumo iyo Cunha ay dhibaato badan u geysteen labada xidig. inkastoo guuldaradana ay dhib weyn ku tahay Arsenal, Wenger wuxuu weli rumaysan yahay sanadkan uu yahay kii Arsenal horyaalku guuleysan lahayd kooxaha kalena ay ka qaadi lahayd koobkan xiisaha badan. Michael Carrick hogaamiyaha ku meel gaarka kooxda Red Devils-ka Michael Carrick ayaa dhankiisa fariin u diray kooxdiisa kadib guushii Arsenal. Carrick ayaa ku riyoonaya ama ku riyaaqaya bilow cajiib ah oo ku garaacay labada kooxood horyaalka City Arsenal ayaa carab ku adkeyn isagii kooxduba lacagaha dhulka dhigi doonaan ma ogolaan doono inaan ku fashilano labada natiijo ee waaweyn mar walba waxaan ku saabsan tahay wax xiga ayuu yiri. Carrick si gaar ah waa maani Cunha goolka guusha la 7 daqiiqo kulanka Arsenal kasta labadii kulan ugu dambeeyay kursiga kaadka ka soo kacay haddana wuxuu ahaa geesiga kooxda. guusha ayaa Manchester gelisay kaalinta afraad ee horyaalka BL-ka iyadoo 38 dhibic taas bedel weyn marka loo eego meeshii ay kooxdu taagneed Carrick intaan loo magacaabin 17 Janaayo. waa markii ugu horeysay Manchester 2010 ay United 2 kulan isku xiga ka badiso kooxaha fadhiya kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ee horyaalka. Carrick
ayaan u sheegay inuusan marnaba ogolaan doonin ciyaartooyda isdhigtaan ama isla weynaadaan kadib guushii ay ka gaareen kooxda Arsenal. Shaqo adag ayaa inoo taala yiri inaan hor socono ayaan qasab ah waqtigan.